السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxay noogu diyaara Khadar Mooge oo dacatiyad badan kaga yimid dhinaca xaaskiisa isla markaasina nooga warbixin doona dhacdadii ugu dambeysay ee ku dhacday ee laga qafaashay xaaskiisii oo gurigiisa u joogtay. Khadar bal arintan warbixin naga soo walaal. bismillah aad baad u mahadsantiin waxaan salaamayaa TV on cable TV runtii hore anagu dhibaato aad u badan ayaanu ku soo marnay waxay ahayd halka guurka hadday noqotay annaga ahaan tii ugu dambeysay waxay ku dhacday bisha 5teedii ayaaba anu waan la kulmay tan maanta ay haysatay ilaa maanta maxay ahayd gabadh iyadoo oo caafimaad qabto oo wanaagsan ayaaba iga tagtay bisha 5teedii waxa lagu abuuray oo lagu yiri doo kaalay si macnaha goor mo tagto reerka ugu tagto lagu yiri hooyada ayaa waxay galaysaa operation qaleyna sidaa darteed hooyada maadaama hooyada tahay waalidka tahay waa in la soo eegtaa waxaan arrinka ka dambeeyo oo ku tashkiiliyo oday adeero isna ka yimid Mareykanka ayaa waxa uu ku yiri imo xaafadiinu qalad bay ku taagan yihiin aniga carruurteeda waxa qaban nin cadaan oo magaranaysa gaal oo aan islaam bahin baa qaba misoo adigu oo nin islaami ku qabo sidaa daraadeed waa in xaafadiinu maada xaafadiina la hadlaya hadii saaqo eegaanay dhaaq ku dhufnay gurigeena ku soo degbu kuuri halkan ay ka baxday gabadh iyadoo sidii arrinkii lagu programiyay aaminsan ayaaba goorma tagtay hadii ay tagtayna waxa ay maalintii ay tagtay baa aniga horta warkeeda igu dambeeyay daraad waxaan helay warbixinaha in iyadii ay xiran tahay maalintii saa ay u tagtay maalintii ka dambeysana laba xiray oo inta laga xiray leeyli bartaa ku jir bartaas aad joogaysaa loona soo diyaariyay oo loo soo abaabulay nin loo dhiso oo guur kale ay gasho waxa dhacday in ay soo sheegtay shalay in uu guursaday in adeerkeeda loo meheriyay muddo 3 habeen ay u meersan tahay oo leeyli ninkaas qabaya noqon meeysid agteedana ka tagmaysid markay tiraan waxa asbaanayo nin xaad oorgaan oo uurna waalay ugu yiri waxa waxba kama jiraan meherka midgaankuna timid shaqeynay ma aho meher midgaan buu qabo meher midgaan lagu dana uu qabtaba hay'adayna taas dhacday markay tir uur baanayna waxba nagama gelin baa lagu yiri xaaskaygi oo uu sharbiloodayle ayaa baanan imika meel ay taan yaqir u dhigtay aanan hayn laygana xaafadoodii ay afduwan ay qafaasheen dibtii weyneedna maanta tan ay haysataba ayay noqotay horena xukuumaddu way igu dadaashay oo aad bay dadtii horena igu dadaashay imikana waxa ku jiraan dadaalkii waxaan u mahadnaqayaa barasaabka gobolka Awdal iyo la taliyaha arrimaha dhanka bulshada madaxweynaha Barkad oo iyaguna runtii imika maxay ahayd aad iyo magaraasa ila shaqeeyay waxaan maxay ahayd baarid aad oo ay laga wada gobolka Awdal oo arrinkan quseeyay maanta ayaaba waxa laga wada gobolka Awdal ciidamadii iyo maxay ahayd dhamaantood dadaalayaan oo waxay ku jiraan heega si arrinkan magaraasa wax ku qaban lahayn Khadar gabadhaadu uurka ay ku lahayd mise bilood baa 5 bilood way adiga saameyn intee leeg ku yeelatay arrintaas naftaada shakhsiyan waxay u noqonaysaa oo imika xaaskaagii oo magaraasa ka tagtay imika daqiiqada waqti kadib lagu raado la guursado nin baa qaba wax ka xunba ma jirto wax magaraasa aniga nafahaanteeda imika aniga baa ka fariisanayo oo isweydiinaya macnaha waxaan sidoo ku dhacayaa marka wax ka xunba ma jiro dadin walaal imika xaaskaaga lagu qaba dibadda wala diinay qaadanay marka aad oo magaraasa dareenkii guday waniga magaraasa u kacsayay waxaan ku tilmaamana ma garanay deedinka baxum aan ku tilmaamay arrinkan ay dadkan ku dhaaqanay sameeyeen marka balda halkan ay kaga taalo kitaabka dhikarima meher midgaan ma hayo bal kitaabkii laga baaro dib ha loogu noqdo Khadar kulli marxalada kala duwan soo martay ilaa maxkamadda Gabiley la labadiyo tobankii bal arrintaayada bal in yaro dib u noqoshaa bal arrintan naga sii kartaa waan bixin karaa waxay ahayd sanadkii bishii shanaad 2012 ayaaba maxay ahayd halkan loogu yimid labadayaba anagoo qabna markaas oo deewreedana ay tahay iska aqal degan oo dad qabanahay ay reerkoodii noo yimaadeen deetuwana la soo ashkatay waxna la geeyay saldhiga waan tagnay arrinkii uu markaa taliyihii markaas saldhiga haystay uu yiri maxkamadda ku xiro maxkamadda geeya labadeedu hal maalin baa jeerka saldhiga ku xunay waxna loo gudbiyay maxkamaddu markaas si wanaagsan bay u qaaday kiiskii waxay dhageysatay xaafadoodii iyo anaga labadeedaba kiisku markaa xaafadoodii waxay ogaatay in maxay ahayd gabadhan ma geeyo ma guursatid ay sheekadu tahay markaa maxkamaddu waxay markaa waqtigaasi nagu xukuntay na fasaxay inaanu isqabno oo isqabi karno deysgeyno ay maxkamaddu waqtigaasi nagu xukuntay noo sii deysay sidaa darteed waan soo baxnay
habeennimadii baa waxay dhacday in weerar xataa laygu soo qaaday aniga lafaantayda oo markaasi waxoogaa kadibna ciidankii iyo dadkii shicibkii iyo loo dhawa markaasi ay iga soo gaadhaan inuu soo gurmadaan. waxaa jirtay in maxaa yeelay aan Hargeysa halkan fakad kaga tagnay oo Hargeysa ku baxsanay kadibna maxaa yeelay markii dambe Hargeysa ku soo noqonay sidii halkan aan ku joognay marka wallahi dhib aad u badan waa kala kulmay aniga aan lafaantayda. kaasi wuxuu ahaa khadar oo dacatiyo fara badan keentay dhinaca qoyskiisa nin walba uu garanaya qoyskiisu waxa haddii halkaas kaga timaado nolosha meel kale looga sii dulka caalami jirinba arrintaasi oo maanta aada looga hadlayo gobollada Awdal iyo Gabiley ayaa waxay saameyn ku dhex yeertay bulshada ku dhaqan magaalooyinkaasi. khadar gabadhaada adiga magaceeda sax maxaa la yidhahdaa? waxaa la dhahaa Faysal Cali Ibrahim. markaa maxaa yeelay waxaa jira xataa waxyaabo dhibaato badan oo anagan magarasa la soo gaadhay waqtigii waxaa dhacday sanadkii cusbaa 2013 14 baa 13 baa waxaa lagu jeexay dhakhtarka Hargeysa ayaa ay operation gabadhu gashay deeto markii operationkii anaga noo dhamaaday oo noo dhamaadeen baa waxaa dhacday inaan raado gabadhii waan la baxaynaa waqtigii dadku kula bixi jireen oo kale deeto waxaa dhacday in la yiri lama bixi kartaa maxaa yeelay gabadhii oo maxaa dhacay anaga wadane gabadha qabnay meeyay shaqo kuma liidin oo anaga dhalay hooyadeedii maxaa yeelay markaas waxa joogay inay walaalihiin dadna loo soo sameystay oo markaan leeyli halka halkaas markay ka soo baxaan la tusay ilaa halka markay ka soo baxaan waxa ka yeelsan ka yeela ayaa baa jirtay habeenkii waxa jirtay in habeenkii gaadhna laga qaado dhakhtarka gurihiisa oo lagu geeyo xaafadda aan markaa degnayn subaxina dhakhtarka gaadhna lagu keeni jiray waxa dhacday in islaantii markaa hooyadada ay iyagoo markaa waqtiga iyagoo ay hubaysnaayeen ay yidhaahdeen iyana adii ay walaalaha gabadhada ay walaalaha haayeen ay yidhaahdeen kama bixi kartaan dhakhtarka inanteeda anagaa la baxayna arrinkii wuxuu gaadhay maamulkii sare ee dhakhtarka wuxuu ahaa adnaa loo yeedho lagu yidhi dadkan ay jira maxaa yeelay saasaa dhacda gabadhana dee dadkani weytanoy qabeen hooyadeedii waalidkeedna waa kuno gabadhii bay doonayaan inay ka haystaan adna waxau yidhi gabadhii islaantii dhashay nanta ku tiri iyagu soo may wadan oo may qabin iyagu haa soo kharashkii wixii baxay may bixin may way bixiyeen haddaba dhakhtarka intay dhaaf ku fitay ku tiri dhakhtarka igama soo geli kartid meel ay joogaan ma soo joogsan kartid dhakhtarka iyo albaabka shishe ka joog haniga soo geli dhakhtarkayga si markaa maxaa yeelay dee adnina ay iyadoo iyaga sabab dee magarasa wixii saxa ayay iska joojisay oo islaantuna tiri maba qaadan kartaan markii dambe waxaa dhacday inaan u barno noli iska daa hooyo waa waalid waa hooyada oo kala iska daa markaa nala joogtay dhibaatadana ma jirta anaga iska heshiine saa darteed baan noo soo daysay islaantii sidii baan nagula joogtay dhib badan baanu kala kulanay wayna soo raacday waa dhakhtarkii waan kasoo baxnay magaalada Gabiley baan anagu nimidnay anagoo dhan oo macal islaantiina soo raaceen gabadha dhashay oo iswada dhayiin halkan Gabiley waxaa nala joogtay islaantu laba bilood ay nala gelisay gurigeyga nala deganay nala culaysay nala cabisay maalintii wixii ka dambeeyay ilaa maanta waxaa ilaa bisha 5teedii waxaa lagu jiray gacan haaliskeeda sidii loo soo xirigelin lahaa gacanta lagu soo dhigi lahaa ayaabaa lagu jiray markaa maxaa yeelay way ku guulaysteen iyagu gacanta way ku dhigeen oo sidii way ku qaateen gabadhii xaafadoodii ma ku jirtaa markaa maba inay deeanu nooshahay kala markaa maba xaqiijin karo iyadoo waqtigaasi aniga ii lahayd uu 5 bilood ayaa waxaan weydiiyey maxay xaafadiinu saa ku garatay waxay ku jawaabtay ku qaliban tahay oo iyaga gartay taas aan waxaan sameeyay laakiin ma garanayo waxaan ku lisoo ma khasbin haa waxay ku tiri waa lagu qasbay waana cadeynayaa in lagu qasbay oo nin la ii dhisay in adeerkayo la ii meheriyay waxaana la doonayaa in Ethiopia laga qaado laga saaro magaalada ayaa la doonayaa waxaana waxa ka dambeeyay bay ku tiri adeerka iyo hooyada iyo de walaalaha ayaa arrinka ka dambeeyay waxaan sameeyay waan garan waayay halkii baan ku aamusay de nafteedii imika waxay qabatay waxay sameysaba de way garan lahayd in wax ka xun ma jiro xaaskaaga oo quraado waa lagu qabaayo ninkana qabo cadaan mana qasanayaan oo ma aha dad wax qarinayo oo le maxaa yeelay lama qaban wala way qasanayaan oo meher mid gaarnay oo haye ma ahe kana aan imika meherneeyno ayaa meher anaga noo jiraba yaa misayiin waxa garanaysa marka ayo de saasay maxaa yeelay information kaas ay soo siisay marka muxuu ahaayay de xaafadoodiina saasay doonay ay jeclaadeen sidii imika way yeelan oo ay qaadeen marka waxaan maxaa yeelay aan ku rajo weynahay baadhida ka jirta gobolka Awdal ee ma garanaysa ay ciidamadu gacanta ku hayaan ilaa ay ku jiraan iyo maamulka hawlka ay ku jiraan wadaan waxaan ku rajo weynahay 100% inay ku guuleysan doonaan insha Allah. Mukhtar Nuux Ibrahim, Home Cable TV.